السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي كسر هذا البرنامج كيني أما توتوريال كيني كمبيوتر بيسك يعني ما أنت وحربا إن نلو وذا وحلي هذا شورت كات ويندوزز شورت كات ويندوزز كان وحكاية سعيدة يعني هذا سكيد أفتد أما وحويا هذا أوباهان وحلي هذا موسيسكا أو هذا كم موسيسكا لابتون هذا موسيسكا أو بودكا لبضبا إن هذا حويا يعني كافتونتد أي شورت كات كان حويا كسامحيا شورت كات كان وشورت كات yada halka ka muuqda oo ah Windows A, Windows S, Windows D, Windows F, Windows H, Windows Plus, Key L, Q, W, E, R, T, U, I, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F1, BRTC oo ah kan ugu dambeeya oo ah kan loo isticmaalo waxaan la yiraahdo picture-ka screen-ka haddaynu mid waxa weeyaan u soo qaadano haddaynu u soo qaadano waxa ugu horeeya Windows Plus A marka aad taabatid waxa ku soo baxaya action kan ama action center meesha action ku dhaco weeyaan badanaaba waxa ku yaala setting-kii waxyaalo aad u muhiimsan baa ku yaala Windows S marka taabatina waxa uu ku saacidayaa waxaan la yiraahdo searching-ka markaad computer-ka wax weydiinaysid oo su'aalaysid waxa ku xiga Windows Plus D waxa ku saacidayaa down wax kasta oo shaashadaada saaran inuu minimize sida hadda notepad-ka inoo furan markaan ku dhufano waxa ka taskbar ku dhigaya shaashadina screen-kana waxa weeyaan hoos ayuu uga dejinayaa waa folder kasta oo ku furan saas ayuu ku sameynayaa waxa ku saaran shaashadada oo dhan buu down hoos u dhigayaa control F baa inoo hadhay iyaduna wax weyn waa feedback oo wax weeyaan dhanka Google iyo aad online aad ku su'aalaysid feedback ku helaysid oo Windows ku wato control H baa ku xigta iyaduna waxa noo saaraysaa waxa la yiraahdo sharing-ka markaad waxaad markaad wax ku share gareynaysid ama sharing-ka waxaad rabto ahaade waxa kamid ah Cortana oo ah iyadu cod inaad ku su'aalo feedback email-kii waa waxyaalaha Windows ku wato waxa noogu xiga control key waxa la yiraahdo oo isagu wax connect-kii ama waxyaalahan connection-ka device-yada connection-ka oo ku xidhan computer-kaaga waxa ku xiga Windows L yada taaban mayno sababtoo waa login waxa laga yaabaa waxa aynu tuubanayno inuu kala go'o marka Windows L hadda taabatid waa login-ka screen-kaaga wuxuu isgelinayaa login waxa ku xijinayna Windows Q iyaduna waa searching-kii oo kale oo su'aalun baad wax weydiinaya internet-ka haddaynu hore u socono waxa ku xiga Windows W hadda taabatid wuxuu ku saarayaa workshop-kii workshop-ku waa meesha waxa weeyaan workspace baan leeyahay waa meelaha lagu shaqeeyo waxba ku leeyahay waa workspace waa wax Windows ku wato oo aad ku saacidaya meelo badan ka saacidaya waxa ku xiga Windows E oo iyadu ah marka taabatid in ay ku furto folder cusub bay ku furaysaa kaagi hore oo ku daran bay mid labaad haday rabto ku furaysaa waxa ku xiga Windows R badana waxa loo isticmaalaa marka aad CMD oo kale iyo marka aad mobile laptop-kaaga waxa weeyaan culayska ka yareynaysid waxa taabanaysaa temping wakaas marka 2% baa dhinacyada ka xijinaysaa temping waa ku qoraysaa waxa ku soo baxaya waxaan oo dhan control A baa taabanaysaa waa iska dhaleedaysaa sababtoo waa RAM-kaaga ayay buuxinayaan waxaan oo dhan escape baad saaranaysaa escape marka RAM-kaaga ayay buuxinayaan isaguna waxaan ka wadnay Windows R wuxuu ka saacidayaa inuu programmada qaar ku soo waxa weeyaan kiciyo waxa ku xiga Windows T oo isaguna ah waxa la yiraahdo inuu ku tuso disk bar-kaaga waxa ku saaran markaad ku dhufatid hoos waad aragtaan waxba waxa socda isagii weeyaan disk bar-kaaga waxa ku saaran ayuu waxa weeyaan mid ku tusaya ku tusaya waxa ku xiga waxa la yiraahdo Windows U oo iyaduna ah setting bay ku soo furaysaa setting-kaas oo ah control of the screen-ka markaad shaashada aad control sidoo kale bay ku saarsaa waxa ku xiga Windows Plus
E oo isaguna ah Windows settingkiisa ayuu kuu soo saarayaa hadday ahaato systemka mobileka, device-yada, networka, update-ka and security-ga waxaas oo dhan ayuu hal mar kuu saarayaa. waa Windows-ka, Windows I weeyaan. waxaa ku xiga Windows B oo isaguna ah project-yadii. markii aad ku xidhiidhsanaysid waxa weeyaan project-gan derbiga waxa weeyaan casharka ku soo bandhigaya ayaa waxa weeyaan lagu talagalay. markaad ka labaad duplicate baa la taabtaa badanaaba oo markaas wuxuu ku noqonayaa mid clear laakiin haddaad kan screen by screen only buu ku koobnaanaya laakiin labada dhinacba wuu kasoo muuqanayaa markan. marna waxa weeyaan laptopka ayuu diminayaa oo kan ugu hooseeyaa, markan kalena waxa weeyaan left iyo right iyo expanding u sameynaya, extending iyo waxsaasa. waxaan ugu xigaa Windows +1 oo isaguna ah inuu noo soo furo Chrome ama Google-ha meesha laga isticmaalo oo Windows ku wato application yar oo Windows ku wato waxa weeyaan oo la yiraahdo Edge. yes dhinac weeyaan macnaheedu. marka isaguna Windows +1 buu ahaa. Windows +2 na wuxuu soo furayaa isla folderkii, hoosna waa kugu dhigaya. isagu waa ku soo furayaa, hoosna waa kugu dhigaya. wuxuu uga duwan yahay kan Windows +E da. haddaynu taabano waxaa noogu xiga Windows +3. haddaynu taabano wuxuu ku soo furayaa Windows Storage-ka. waxaa ku xiga Windows +4. Windows +4 waxa weeyaan application-nadaadan halkan yaala marka laga reebo kuwa Windows-ka application-kan desktop-ka saaran marka laga reebo Windows-ka inta Windows-ka waxa weey loo isticmaalo inta kale oo aan Windows-ka la socon bay ku soo furayaan. waxaana ka bilaabanayaa Windows +4, Windows +5 wuxuu ku soo furayaa ku xiga Windows ka labaad buu ku soo furayaa, Windows +6 na wuxuu ku soo furayaa ka saddexaad, Windows +7 na wuxuu ku soo furayaa ka afraad, Windows +8 na ku xiga saas ay u soconayaan ilaa iyo inta waxa weeyaan ay kaga dhamaanayaan. waxaana soo hadhay Windows F1 oo iyadu ku soo saarayso wax la yiraahdo TBS oo la socda interface iyo waxa weeyaan sida aad u isticmaalaysid iyo waxbay ku sheegayaan. waxa Windows-ka waa helping la socda Windows-ka. waxa ku xiga oo ugu dambeeya Windows BRT screen oo ah picture screen. haddaynu ku dhufano waa kaas picture buu ka qaaday. haddaynu tagno meesha pictureska halkan picture-ka waa kaas picture-keeni picture-ka hadda laga qaaday waa kaas. marka waxaad sii taabanaysaa Windows BRT oo delete-ka dhinacan ka soo xigta. hadda waa ka fiiri sawir baan ka qaaday, sawirkii waa kan waa isla sawirkii markii dhaweyd soo maaragtid. marka sidaas waxa weeyaan shortcut-kaas oo dhan waxay ka saacidayeen inaadan isticmaalin ama ka kaftoontid waxaan la yiraahdo Windows-ka. waxaan la yiraahdo mouse-kan leeyahay waa Windows shortcut-ka. kuwa xiga oo iyaguna ku saabsan waxyaalo kalena waan inii soo wadaa hadduu rabbi ka noqdo. intaas ayaan kusoo gabagabinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan haddii aad ku cusub tahay waqooyi teach ama waqooyi group aan YouTube-ka iyo Telegram-kaba ku leenahay kusoo biir. intaas ayaan inii soo gudbinayaa maanta. waxaan inii rajeynayaa khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.